boqor maxamed jaamac cumar oo ah afayeenka golaha dhaqanka ee Somaliland oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Star TV xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shir ay beesha Biciida Yoonis ay ku qabanayso gobolka Sanaag ee Ceerigaabo ayaa marka hore taageeray shirkaas balse waxa uu walaac weyn ka muujiyay in shirkaas la qabto doorashada madaxtinimada Somaliland kadib waxaanu ugu baaqay madaxda beesha umatala xukuumadda Somaliland in ay faragelin ku hayaan shirkaasi in uusan dhicin balse waxa uu ugu baaqay inay faragelinta ka daayaan shirka beesha waa kan boqor jaamac cumar oo ka hadlaya waxaan doonayaa inaan ka hadlo shir ay beesha beelweynta Biciida Yoonis ay ku qabsanayaan gobolka Sanaag degmada Ceerigaabo oo lagu baaqay mudana maaragtay haween soo socotay hawshiisa qabanqaabadiisa shirkaas horta marka ugu horeysa anigoo ah boqor maxamed jaamac waan taageerayaa waana soo dhaweynayaa waana mid beesha danteedu ku jirto waxaase jirta xoogaa kala qaybsan oo madaxda dhaqanka qaar ka mid ah iyo waxgarad kale oo iyaguna soo jeediyay shirka in doorashada laga dib mariyo waxaan marka ugu horeysa ugu baaqayaa hoggaanka dhaqanka dhammaantoodba in arrinta maaragtay ay ka kulmaan laga wada hadlo shirkana maaragtay la mideeyo lagana daayo maaragtay miidiyaha iyo khilaafka laga daayo in dib loo dhigo aragtidayda iyo fikirkayga shakhsiga ah oo doorashada laga dib dhigo waxay ugu muuqataa inay tahay macnaheedu Biciida Yoonis bay aanu shirin oo dib ayaan la isugu iman maantana ayaa la shirin dibna ayaan loo shirin marka anigoo ixtiraamaya dhinacyada oo dhan iyo dhaqanka oo dhan waxaan u arkaa leeyahay taasu mid meesha ku habboon maaha waa runtii waa mid maaragtay beesha aan u wanaagsanayn dhaawacna u geysanaysa in la yiraahdo lama shirayo ama maaragtay doorashada laga dib mariyo de waxa weeyaan beesha waxba kama hadli karto ayay macnaheedu noqonaya taas meesha maaragtay waxa ka wanaagsanaan lahayd shirka aan dib u dhigno aan wada hadallo farsamadeena iyo maaragtay wada tashiga aan midayno sidaas aan soo jeedinayaa laakiin arrintaas mid meesha maaragtay ku jirto qabata maaha haddii maaragtay sidaas arrinta u dhacdo oo leeyahay taas maaragtay ay socotana waxa weeyaa waa mid maaragtay beelweynta Biciida Yoonis la barjab ku ah keenaysana inaan dib aan Biciida Yoonis u shirin iyo inaan la isugu yiman shir xilliga doorashada dawlad la qabtayna wax macna u sameeyo ma leh mana suuragelay mana la isu imanayo waxa leeyahay arrinta maaragtay hal la dajiyo xilliga ku habboon shirka hal la qabto hoggaanka dhaqankana waxaan ugu baaqayaa mar labaad oo aan leeyahay waxa la idinka baahayaa inaad ku shaqeysaan rabitaanka iyo doonista shacabka dhaqanka u tihiin hoggaanka dhaqan u tihiin taas waa mid muhiim laga maarmaan ah sababtoo taadinku dhaqan baatiin beelweynta Biciida hoggaamisan in rabitaankooda ku shaqeysaana waa mid maaragtay laga maarmaan oo muhiim taasna maaragtay iyaga saasaan ugu baaqayaa inta markaan ka gudbo waxaan iyagana maaragtay aan fariin u dirayaa siyaasiyiinta beesha ku jira dawladda Somaliland oo ugu horeeya wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi oo shirkan ku haya maaragtay faragelin waxaan leeyahay shirka faragelinta adeerkada dani ku idinkuma jirto beeshana dani iguma jirto Somaliland dani iguma jirto waxaan leeyahay shirka oo burburkiisana waxa ka faa'iideysaan male waxaan leeyahay arrintaas ka waantooba lacagta yarisaadka ee dadka maaragtay moobilka ku dirayaan jaabka yar ku diraysaan waxa weeyaan waxba keen mayso waxna tari mayso dhaawacna way geysanaysaa haddii taa la joojin weydaana waxaan idin cadaynayaa idin sheegaya inaanu annana halka ka furi doono wax la yiraahdo kaafdoon ama iyo AFC Plus oo jeeb weyn aan u furi doono dadka taasuna waxay keeni doontaa Somaliland inay kala qaybiso arrintaas runtii waan idin ka digayaa waxaan ilaahay ka waantooba shirka reerkana xaq bay leedahay shirka faraha kala baxa waxa fiican inaad ku mashquushaan dadka abaartu ku dhacday sidaa loo fasiraya aan ahayn ilaa hadda maaragtay isku shiman iyo xeebta maaragtay Puntland yaala badeeda yaala abaartii maaragtay tagay wax soo guray wax soo maaragtay celiya u baahan taasina ka shaqeysaan baa loo baahan yahay runtii gacan badan ay ka geysatay dawladda Puntland iyo shacabkeeda runtii madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Ali Gaas iyo dawladdiisa iyo shacabkiisa aan uga mahadcelinayno kuna amaanayno runtii ilaa haddana la daba taagan si dadka u soo celin lahaayeen in taa maaragtay laga shaqeeyo ragga abaarta ka hadlaya inuu taa ogaado baa loo baahan yahay
waxa madaxtooyada Soomaaliya dowladda Soomaaliya ka geysatayna waa looga arintaas waxaan leeyahay taas maartay ka shaqeeya dadkii kaararka ka hadlayna waxaan leeyahay dadkii baa halkaas u jiray dadkii raadiya oo baabuur dira oo raashin u dira oo shidaal u dira oo gacan siiya taas baa maartay leedika baahan loo baahan yahay arrin shirka maartay saameyn ku yeelanaysa waxaan la sheegay cudurdaar noqonaya maaha shirkuna waa shir beesha dan ugu jirto taasna waan ka digayaa waxa kale oo iyadana halka ka cadeynaya anigoo boqor maxamed jaamac waxa aan maartay wada xiriirnay shirka kadib bisha 9aad in maartay xubno kamid ah aqoonyahanka beesha wax karadka beesha halkan maartay ku casumo muqdisho oo ay halka yimaadaan ilaa 100 xubnood si ay uga hadlaan maartay uga tashadaan arrimo beesha xiriirkeeda iyo wada jirkeeda iyo midnimadeeda quseeya oo aan siyaasad shaqo ku lahayn maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere Star TV magaalada Muqdisho.